بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان با شعب كإداونية فيسبوك إيقاد إداونية وحن halkan taasi wadraya dhamaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen shacabigii ku dhintay doontii ku degtay halka u dhaxaysa Masar iyo Greega ilaa Talyaaniga waxa dhinacayga fadhiya Xamse waxa dhinacayga fadhiya Amaal waxa dhinacayga fadhiya Maxiyadiin iyagu waa shacabka ku nool Qaahira isla markaasina doonaya inay ka talaabaan badan Masar isla markaasina u talaamaan badda Talyaaniga hase ahaatee maxaa ka horeeya Xamse ku soo dhawow warbaahinteeda caalamiga ee dhanka Facebook inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt ba ilaahay yiri marka wallahi waxaan tacsiir dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba dadkii eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ay ka gooriyoodeen dadka Soomaaliyeed ee tirada badan walow aan qaraabanahay inta badan waxaan leeyahay ilaahay ha naxariisto ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo dadkaasi shiriinta ahaa nabadgelyada ahaa ee ka soo baxay waddanka Soomaaliya gaar ahaan badnaan inta ugu badan ay ka soo baxeen gobolka Togdheer waxaan leeyahay ilaahay ha naxariisto آمين 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 سيدو كلا واحد دينعيga fadhiya Maxiyadiin ku soo dhawow warbaahinteeda بسم الله الرحمن الرحيم لا كل نفس ذائقة الموت نفس إلهي وحن فقرينا دمان قرابتي في جوريين نبكي فيها لعلمي بدنا مصر وغريك إلى حاليا حاسد شرايا لونون سمي إيمان الله يحسيو أنا ومن الله يسمح الله يسيو واي أصحاب لنا عن قرنيو أقول جدي يقولون عن نقول عايشين يقولون عن صاحبه يقولون عن والعيال مركات يا حي سلاس نوتي عن تحسي قارة هانا الجريا قبل تقدر يا بدن هاد بدن تقدر جدي اللي عايز اللي ما حسيو استمعني بيقولها شعب وهاجات محيدين هذا ما سنتهاي أمل السلام عليكم dhammaan asxaabtii ku geeriyootay halaagii ka dhacay badda Masar iyo Talyaaniga u dhaxaysa waxa ku jira asxaab aad u badan kuwa isla soo ceeshnay kuwa muddo badan isla joogay magaalada Qaahira waxaan leeyahay dadkii ay ka dhinteen dadkaas oo anagu aan ku kanahay samir iimaan ana laga siiyo dadkaas oo u banaa dadkii dhintay dhalinyaro ka soo jeeda magaalada Qaraac ee gobolka Togdheer ilaa ilaahay raaji'uun badan waxaan dareemaynaa murugo aad u badan ilaahay samir iimaan aan soo koobi karin ay naga siiyo wallahi maanta Qaahira waxay noo tahay caawa iyo maanta shalayba maalin aad u murugo badan iyo maalin midowba asxaabtayda qaaliga ah halka aan ku weynana samir iimaan Allah naga siiyo badana ummadda hadaan nahay Soomaaliyeed ma deyn karayno oo hadii la dhaho laba kun qof baa ku dhintay kuwii ku sii socda baan nahay marka ilaahay samir iimaan Allah soo koobi karin naga siiyo dhammaan ehelada iyo qaraabada ee dhalinyaradaasi ka geeriyoodeena sidoo kale samir iimaan ilaahay ka siiyo in ilaahay raaji'uun آمين آمين أيام لنا هي حمسة كوسو دوينيا أنا جو هالسؤال ويديني حمسو أصحاب هذه بدن كلهم شدة بدأ أيكو هالبلد حاد أدو إسلام هاي ولو أبوساس يمن تو السودان تو مصر إمن كان دوني سينا إيطاليا وسي تلاتي قوان كاجي مكان نقطي مس ولي واتسي وضي سايو إلا تلاتي بحلا هاي نفتو غوصان ما يسوي ما walaalay waxa weeye horta qof waliba dadkan dhintay qof waliba hadaf uu soo baxay hadafkiisa qof waliba isma oranay waa geeriyoonaysa maanta waxa weeye naf waliba de meesha ay ku baxayso ilaahay baa garanaya inaan anigu wadankii ku laaban doono oo wax isbedeli doono ma garanayo laakiin anigu waxaan ku jaweynahay inaan gudbo aan sii gudbo wadanka Talyaani haddii alla ka dhigo toddobaadada soo socda aan u gudbo Talyaaniga ayaan ku rajaynahay wuxuu dhintayna ilaahay uu naxariisto annagana ilaahay hana nabadgeliyo ayaan leeyahay laakiin aniga marna waa laga yaabo inaan hadafkii ka laabto go'aankii aan soo qaatay maanta waddanka ka soo baxay ayaan ilaahay ku taaganahay sidaas aan leeyahay sidaas insha Allah ilaahay khayr buu ka dhigi doonaa ilaahay waxa sooray ilaahay intaas oo Soomaaliyeed oo maanta naga dilay
ما ملاينا إنه نقدر بقينا أنا كمان وش اللي هالك أنا واحد وش نقولنا إلهي وعدالي مركب وحلاي هاي إن شاء الله إلهي هنقدر بكوينا وتجا وأنا إلهي ونحرسته ولو أن ما تفر بدنا هاي أولد ظاهرات بدن وصوماليات يكسوغان سداسا أنه كل شيء إن هاي إن شاء الله تعالى كوينا وتجا إلهي هنقدر sida u wada jeedaan baa TV-ga daawanaysaan xamse waxa uu ku adkaystay in uu ka talaabo biyahan Masar isla markaasina uusan joogi doonin Masar uu u gudbi doono Talyaaniga haduu eebay idmo ilaahay safarkaaga safar qeyl qaba kaaga dhigo xamse ayay muxidiin adiguna anigu waxaan ku rajaweynahay nafs maalinta Soomaaliya sababta uu qoran maayo insha Allah أمي هذا الشيء وانجاريا لكن كجوع حتمي قوة كريم كان هذا الشيء لا هي كده سا لا هي إن شاء الله والسلام هيه أمل والله يرتقف كستوتو ماذا هدف قوي ماذا أنا وحوي إنه ترى أنا وودم بنشوف ما كبير بنفسلي وخوبا مرسلي ساسي تاي هذانا وحنوصل هدف كيجو هاي أنا نيرتقنا مركا إن شاء الله دينا فولي بقى مركا إلى نقف بس عاد سلاك ما تكون وإذا شفت جدا وعقب شفت جدا بتكتب فاضي من الساعة مركا إن شاء الله وحرتين إن هدف كيجو ناخذ مجارنا الله سبحانه قادر وحن كبرنا أنا قلنا رفقتين أنت مثلا إلهي إنه وهجاج سيدا أول الجدان متهربين كقاهرة يجوا مغلية ضدك كل منايا وضنك ودحيا مصر إلا إيطاليان وأيجو أنكودو كما أيسن لابنيان كمان أيسن بقيان لما شو كل نفس ذائقة الموت waxaan halkan warbixin kooban doonayaa inaan ka siiyo qaabkii markabka doonta aan iraade ay u degtay doonta waxa saarnaa tiro gaadhaysa ilaa iyo 350 qof sida ay xaqiijiyeen mukhallasiinta Qaahira 350 qof ayaa saarnaa sidaas darteed oo la doonayay in tiro gaaraysa 40 qof Soomaaliya isugu jirta ajaanib in la saaro hase ahaatee doontaasi ma aysan saarnayn Soomaali oo kaliya balse Soomaali ayaa u badnayd iyagoo tiradooda lagu sheegay 200 oo Soomaali ah waxa sidoo kale ku jiray Masaari waxa ku jirtay Suudaan dad badan ayaa ku jiray laakiin wararka la hubo waxa ay sheegayaan in Suudaan iyo ay markaas u badnaayeen Soomaali iyo maxaa la yiraahdaa Masaari isugu jir ah iyo Ethiopian iyo Eritrean waxa halkaasi sida la ogsoon yahay ku dhintay ilaa iyo 130 qof adigu ilaa 150 qof oo Soomaali ah balse badankood dadku waxa ay sheegayaan in tiro intaasi ka badan ay ku dhimatay balse ilaa iyo hadda lama hubo sababtoo ah dooyo badan ayaa ka baxay Qaahira ilaa walow ay afar hore gashay ilaa bishii labaad ayaa la rarayay maraakiibta ka baxda Qaahira waxa idin sheegayaa warka saxda ah in doontaasi sababta ay ku degtay ay tahay in 40 qof loo keenay sidaas darteed ay shacabkii doontaasi saarnaa ay wada istaageen iyagoo ku andacoonaya dadkaasi dooni mayno waayo doontu waa ay buuxdaa hal doc ay isugu yaaceen sidaas darteed ayaa docda ay u ciirtay ayay u dhacday 40 qof markaasi saarnaa waxa waa la dhaqaajiyay waayo intaas oo qof oo dad badan ah ku soo yaacay oo dabaal yaqaan ma qaadi karaan iyaga laftirkoodu waa ay sababaysan saas darteed waa ay gudbeen sida la sheegayo 20 qof ayaa guriga badbaadiyay oo iyagoo nool ay halkaasi ka heleen oo guriga loo gudbiyay wararka saxda ah waa idin soo gudbin doonaa haddii ay raalli ka noqdo متهربين كنول قاهرة الصومالية سنا إذا شيء وقان كودو كما أي سلابن حسا هتي وح الشعب كقاهرة إلا يحلي إلا يمان تاي كثير سنة تعسيداسي sidoo kale doontaasi hadaan warbixinada ka siiyo waxa ay baxday muddo 10 bari ah ay maqan tahay hase haatee sida shacbiga Qaahira ku nool sida aniga ay wararku ii soo gaareen doontaasi waan maqlayay muddo 4 bari ah in la lahaa doon baa dhacday balse aan la xaqiijin warka saxda ah uu soo baxay xalay warkaasi soo baxay aad bay u mahadsantihiin